weerar toos ah iyo qaraxyo dhimasho iyo dhaawac badan geystay ayaa lagu soo warramayaa in saaka lagu qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. weerarkan waxaa lagu qaaday xarun uu Gaalkacyo ku lahaa wadaad caan ah, halkaas oo maalmihii u dambeeyayba wadaadku dhalinyarada ku baraarujinayay in ay qaadaan nabi ammaan qoobka ciyaar lagu daray. wariyaha idaacadda kulmiye ee jooga magaalada Gaalkacyo Liban Cajiib Xaaji ayaa ka warramaya. waa maasantahay cabduqani saakii saacad markay ku beegneed 5:30 daqiiqo ee subaxnimo ayaa weerar isugu jira qaraxyo iyo raswaysan waxaa lagu qaaday hoyga uu magaalada Gaalkacyo ka degnaa Sheekh Cali Cilmi Yare oo kamid ahaa culimada sida weyn lagu yaqaanay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isla markaana ay si weyn fikirkiisa ay soo jeedeen qaar kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana weerarka ama gaariga lagu dhuftay hoygu ka degnaa magaalada Gaalkacyo taasoo sababtay in guud ahaan uu burburo hoygii uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo iyo xaruntii uu ku shaqayn jiray waxaana markaas kadib rag weeysan ay gudaha u galeen guriga uu ka degnaa halkaasi oo ay toogteen xirtiisii ku sugnay gudaha xarunta Sheekh Cabdiweli magaalada Gaalkacyo waxaana weerarkii koowaad sida la sheegay la xaqiijiyay Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaadka xirtaasi isla markaana kamid ahaa culimada sida magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana intaas kadib weerar toos ah uu ka bilowday gudaha xarunta waxaana goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa danab iyo kuwa maamulka Galmudug kuwaasi oo ilaa hadda dagaal ka dhaxwada gudaha xarunta Sheekh Cabdiweli waxaana la sheegayaa inay gudaha ay ku jiraan rag weeysan oo ilaa hadda aan la aqoon waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka Galmudug oo goobta ku sugan la hadlo waxay sheegeen in weli howlgalku uu socdo isla markaana gudaha ay ku jiraan rag weeysan oo ilaa hadda aan la garanaynin isla markaana loo maleeyo raggii saakii weerarka ku soo qaaday marka dhimashada hadda inta la xaqiijiyay ilaa 15 qofood ayaa la xaqiijiyay dhaawacyo kala duwan ayaa dadka soo gaaray waxaana guud ahaan burburay gurigii ka dhawaa xaruntii uu lahaa Sheekh Cabdiweli oo kamid ahaa culimada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. tirada marka ragga gudaha u galay xarunta la weeraray ma la shaaciyay ama wax uga ma ka haysaa Liban? waa maasantahay qaar kamid ah saraakiisha Galmudug oo la hadlo waxay sheegeen in ilaa 3 kamid ah ragii weerarka qaaday ay gudaha ay galeen isla markaana qaarkood hadda sida la sheegay la toogtay oo saraakiishu ay sheegeen in weli rag ay ku jiraan isla markaana weli xabad ay ka socoto hoygii ka degnaa magaalada Gaalkacyo Allah naxariisto Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo kamid ahaa culimada sida weyn lagu yaqaanay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug marka goobta waxa soo gaaray ciidamo fara badan oo qaraxa hore kadib iyo weerarka ay ragga sida tooska ugu galeen gudaha xarunta ma jira qarax kale oo magaalada Gaalkacyo ka dhacay sida wararka qaar ay sheegayaan. waa maasantahay ila xog ogaala oo ku sugan gudaha magaalada waxay sheegeen in gaari nooha uu ku qarxay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug dhinaca galbeedka waxaana la sheegayaa in qofood ay halkaas ay ku geeriyoodeen waxaana la sheegayaa in gaarigaasi ilaa hadda loo ogeyn cid balse mar qura la arkay urada qarax